وهاجاك سود وهذا دمانتي صاحبي الملك استو أتوقتني حلك السيدين تعبا وصاحبكين عبد الله معلمو ودوني أنا عاو هالكن كدوبه مقال رنتي إن بدن ليجور ريا دوبستيسا إن بدن عندي بدقي حس أهت ودم بين أندوني عاوين أندوبه sidoo kale muuqaalkan hadda aan duubayo wax ka badan 50 qof ayaa live-ka ku jirta zoomka hadda aan bilowna zoomka insha Allah inta socdan ilaa 100 qof inay soo gashaan rajayn doona caawa waxaan rabaa inaan soo koobo presentationka ama sida saxda ah ee fariintan qof loogu gudbiyo waxa jira dad badan oo barnaamijkan ku jira ama forex trading kliyaato ama market slave kliyaato oo waxyaalo badan isku dhex walwalaaqa isku dhex khalkhalda si ay dadka fursaddan u qoraan oo u soo geliyaan waxa isku day doonaa inaan caawa barnaamijkan sida ugu saxsan ugu runsan ugu fudud inaan kugu sharaxo hadii aadan weligaa maqlin forex trading hadii aadan weligaa maqlin waxa la yiraahdo market slave 30 daqiiqo ee soo socda ilaa 25 daqiiqo ee soo socda madaxaaga iyo focuskaaga oo dhan videogan soo sii okay marka hore magacayga hadaan ku bilaabo aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiwali Axmed Cali sidoo kale waxa la yaqaanaa Muallimu iminka waxaan ku noolahay oo deganahay xilliga videogan aan duubayno waa December 2018 December baan videogan duubayna so obviously was 2019 waxaan ku noolahay waddanka Sweden 4 sano ugu dambeysay waxaan deganahay Sweden 4 sano ka hor waxaan ka yimid Soomaaliya markaan Sweden imaanay hadafkaygu wuxuu ahaa inaan nolol qurux badan helo oo ka duwan noloshii taale meeshaan ka yimid taan u caawiyo dadkaan u yimid meeshaan ka yimid hadda qofku markuu soo galo adduun cusub iyo waddan cusub iyo dhaqan cusub wuxuu galaa jahwareer fara badan waxa ku qasban tahay waxbarasho walba aad taqaan inaan ziir ka soo bilowday waxa ku qasban tahay skill walba iyo xirfad walba aad lahayd inaysan waxba ka jirin circle-ka noocaas dadku wuxuu ku kalifaa depression iyo stress iyo madax xanuun stresskaas iyo madax xanuunka markuu dhaco dadka qaybo meel bay madaxa la gashaa anigu waxaan madaxa la galay inaan wax akhriyo waxaan ku cararay wax akhriska oo aan door biday waxaan akhrin jiray buugaag fara badan oo ku saabsan horumarinta nafta iyo sida qofku u guuleysan lahaa buugaagta ayaa waxa iga soo dhex baxday in ay jirto wax la dhaho entrepreneurship waxa weeye in adiga oo aan iskuul ka bixin adiga oo aan qof shaqo u raadsan inaad fikrad ficil u bedeli karto oo shaqaysan kartid safarkii entrepreneurship nim halkaas ka soo bilowday waxaan noqday qora buugaag af Soomaali ku saabsan buugaagtii aan qoray ee Soomaaliga ahaa waxay noqdeen buugaag Soomaalida dhexdooda la isla dhexyaaco oo meel fiican gaarta kadib 2018 bishii koowaad waxaan bilaabay safarka shirkadii ugu horeysay network marketing aan ka shaqeynay shirkadaas oo muddo 6 bilood aan ka noqday regional director oo runtii ah darajada saddexaad ugu sareysa qof gaari karo shirkadaas waxay ii furtay albaabo badan oo ay ka mid tahay in aan barnaamijkan caawa aan ku jirno aan soo gali karo haddii aanan kambaniga hore ku biirayn haddii aanan muddo 3 bilood gudahooda regional director gaareen haddii aanan dhiseen organization 200 oo qof ka badan ay ku jiraan ma bilaabeen market slave haddaba maxaa kalifay inaan barnaamijka weyn ka soo baxo oo aan ka bilaabo laba sababood baa kalifay maybe sababta anigu forex aan ugu biiray sabab ka duwan inaad ugu biiri doontid balse anigu waxaan ugu biiray laba sababood sababta koowaad waxa weeye in market slave ay ku siinayso xorriyad forex trading iyo market slave oo la isku diray xorriyad bay ku siinaysaa xorriyad maxay tahay shaqo kasta oo maanta ka shaqaysid maalmaha kamid qof baa ku bedeli kara wax kasta oo maanta ka shaqaysid waxa ku khasban tahay meel cayiman inaad ku shaqaysid hawl walba maanta aqabad waxa ku khasban tahay in waqti cayiman aad qabatid balse forexku waa suuq 24 saac furan waa suuq meel kasta adduunka aad ka tagtid aad u baahan tahay mobilkaaga computerkaaga iyo maskaxdaada Ilaahay ku siiyay iyo internet wax kale uma baahna sheekadaas markii ugu horeysay aan maqlay madaxayga ka weynaad haddaan maanta tago El Salvador haddaan tago maanta China iyo Japan iyo Jamaica haddaan tago haddaan Soomaaliya tago haddaan Sacuudi Carabiya maka iska dego all you need waxa weeye computer iyo mobile iyo internet xorriyad weeye taas xorriyada darteed ayaa ugu kaliftayna barnaamijkan bilaabo sheekada labaad ugu kalifto waxa weeye hubantida adduunka wax hubantiya ma jirto xataa inaan noolaalis hubanti ma waa dhiman doontaa maalmaha kamid shaqo walba hadda aan nooshahay inaad ka shaqeyn doonto lama hubo haddaa jiimta jeceshahay xoog weyntaa maalinta cuslaato iska dayn doontaa ama xanuunsatid sax shaqada aan iminka ka shaqeyna forex trading waa shaqada kaliya ee inta noloshaada ka dhiman jiri doonta sababta ma taqaanaa sababtoo ah anagu lacag baan ka shaqeynaa shayga lacag la yiraahdo maalinta adduunka oo dhan laga waayo oo la dhaw wax lacag la dhaho ma jirto maalinka wixii ka dambeeya ayaa shaqo kala raadinaysa ma kula tahay 200 iyo dhowrka dal adduunka ka jira oo dhan intay isku yimaadaan inay go'aan ku gaari doonaan wax lacag la dhaho ma rabno lacagtaas ama ha noqoto cryptocurrency ama ha noqoto fiat currency lacagta warqadda ama ha noqoto gold iyo crude oil it doesn't matter wax walba oo qiimo leh inta ay dunida ka jiraan anigu shaqaan haystaa labadaas sababood baa igu kalifay adigana maybe sababta sabab ka duwan inay ku kalifto haddaba muxuu yahay waxa kan aynu ka shaqeyno ee magaceeda la yiraahdo forex trading okay maxaa se qabanaa exactly maxay tahay shaqadeen muxuu yahay waxa aan ka shaqeyno marka lagu dhaho ninkaasi forex trading buu ku jiraa ama inantaasi forex trading buu ku jiraa marka lagu dhaho exactly maxay tahay shaqada uu qofkaasi qabto waxaan isku dayi doonaa
in aan sida ugu fudud uguna macquulsan aan kugu sharaxo waxaana ka shaqeynaa magaciisa waxaa la yiraahdaa forex trading baa la yiraahdaa okay dii aad horey u ogeyn oo qof wax kale uu ku sheegay waxa aan ka shaqeynaa waxaa la yiraahdaa forex trading ama waxaa loo soo gaabiyaa kelmadda forex waxay ka timi labada eray ee foreign exchange okay ereyga forex maaha erey ingiriis oo caadi meel u jira waa labada kelmadood ee foreign exchange waxaan isku dayi doonaa inta ugu badan inaan af Soomaali isticmaalo qoraalkayga iyo wax aan qorayo okay foreign exchange maxaa laga wadaa marka foreign exchange Soomaali ahaan marka waxa weeye waa sarifka lacagaha qalaad sarifka lacagaha qalaad inaad lacag kale ku sarriftid ayaa waxaa la yiraahdaa forex trading okay maxaan qabanaa marka waxaan sarrifnaa lacag qiimaheed ayaa waxaan ku sarrifnaa lacag kala qiimaheed waxa aan kala sarrifino waa qiimayaasha ay lacagaha kala duwan ay joogaan ayaanu sarrifnaa okay suuqa noocaana marka waa suuq intee leeg waa suuqa lacageed ee dunida oo dhan ugu weyn wax suuqan maalintii laga sameeyaa okay wax ka badan 5.3 trillion dollar runtii aniga intaa markaan maqlay ayaa waxa dhacday in madaxayga oo dhan ay ka weynaatay intaas kaliya baa horta aamini waaye ilaa YouTube iyo Google tagayo aan soo xaqiijiyay qof markuu isweydiinayaa lacagta intaan la yaa sameeya okay yaa qaato guryahooda lacagta kow waxaa jira marka dad la yiraahdo ka qayb qaatayaasha suuqa okay ninba maalin wuxuu weydiiyay yaa lacagta bixiya ka qayb qaatayaasha suuqa forex waxa dhahaata oo maxaa kamid ah kow waxaa kamid ah dawladaha okay dawlad walba adduunka maanta jirta waxay qayb ka tahay suuqan dawladda China dawladda Japan tan USA tan Norway tan Canada tan France tan Somalia arana Somalia ku jira bas dawladaha haysta bangi dhexe oo shaqeynaya oo lacagtooda ay qiimo leedahay waxay qayb ka yihiin suuqan sidee qayb ka yihiin dawlad walba dhaqaalaheeda waxay ku joogtaysaa inuu meesha uu hadda joogo sii joogo ama ka sii hagaagsanaado waxay ku xiran tahay shilinkeedu qiimaha uu adduunka leeyahay maxay marka subax walba dawladuhu ku mashquulsan yihiin waxay ku mashquulsan yihiin in suuqan 5.3 trillion dollar laga qabanayo ay soo galaan si lacagta wadankooda qiimahoodu uu kor ugu kaco haddii ujeedkoodu iyo qiimaduna kor u kaco haddii ujeedkoodu iyo lacagtooda inay hoos u dhigaana qiimaduna hoos u dhaco maybe wadamada qayb baa sicir barar ka cararaya sida Japan iyo China oo kala hadeer hadafkoodu waxa weeye inay sicir barar ku dhicin lacagtooda maxay sameeyaan shilinka Japanese iyo shilinka Chinese waxay isku dayaan inay hoos u dhiyaan why because macaamiisha China iyo Japan wax ka gadata waa dad ajnabi oo adduunka inta kale ka yimaada shay walba maanta agtaada yaala waxa laga yaabaa China iyo Japan lagu sameeyo TV-gaaga talaagadaada mobilkaaga wax kasto agtaada yaala maxay marka China sameynaysaa waa in lacagta Chinese ay qiimihiisa hoos u dhigtaa xagee u maraysaa marka intuu madaxweyne mikrofon qaato wuxuu leeyahay lacagta Chinese hoos u dhignay no because lacagta isagu ma haystee dadka haysta dadka jeebkooda ku jira muxuu sameeyaa marka forex trading buu imaanayaa deetana Chinese-ka iyo US dollar oo kale maadaama US dollar lacag weyn ay tahay ayuu wuxuu ku korgorinayaa qiimo liita si lacagta Chinese-ku hoos ugu dhacdo deetana macaamiisha adduunka daafeeda joogta China waada tiraahdo shilinka Chinese-ku u dhacay aan China tagno okay dawladuhu hab noocaasa ayagoo ka fikiraya economiga iyo dhaqaalaha dalkooda iyagoo ka fikiraya ayay ganacsigan qayb ka yihiin okay number 2 waxa qayb ka ah waxa la yiraahdo bangiyada caadiga loo leeyahay oo aysan dawladuhu lahayn bangiyada bariga hore inta aan forex trading ku biirin waxa isweydiin jiray horta bangigu muxuu ka faa'iidaa inta bangiga kaarkiisii waa wadataa lacagtii waa ku saf garaysanaysaa meel kasto aad tagto waa ku adeeganaysaa maxay dadanta ugu jirtaa lacagna kaama qaadee bangiyada badan dadka lacag kama qaadaan Soomaali Sweet bangiyo kale anaga waxa laga qaadaa 30 karoor ba umaleynaya bishii oo naloo kaga qaado waxa la yiraahdo internet banki dartiis ama waxa la yiraahdo banki ED dartiis ka hor lacag badan ma ahay why because lacagteeni uu bankigu haystaa anagu maxaa haysanaa nambaraha waaba haysanaa 60 karoon dir 50 karoon soo dirso 100 karoon isku dir 50 karoon waa nambaro waxa isku dirtirana where is the money lacagtii runta hayneede lacagtii waxa haysta bankiga muxuu bankigu ku falaya lacagtada ma guriga ku dhisanaya ma dakhliga ku dhisanaya wuu ku shaqaysanaya xagee ka shaqaysanaya wuxuu ka shaqaysanaya suuq maaliyadeed oo maalintii laga shaqaysto wax ka badan 5.3 trillion dollar suuqan gormu furaya beedoy wuxuu furaya 24 saac uu furaya 24 saac shanta beri asbuuc shanta beri asbuuc uu furaya sabtidii axad way xiran yihiin suuqan marka bangiyada laga yimaado suuqa waxa qayb ka wax la yiraahdo hedge funds ama wax la yiraahdo speculatory hedges hadda isku soo koobno aan dhahno dadka taajiriinta waxaan rabaa in af Soomaali ku hadlo dadka taajiriinta maanta aadaan 1 milyan oo dollar iyo ka badan baa haystaa 1 milyan ee dollar ee aad haysatid waxba ku falimaysid waa lacag bangi iskaga jirta waxa ku filan adiga iyo reerkaaga iyo expenses-kaaga dhan waxa ku filan baa laga yaabaa
$500,000 half a million baa ku 600 oo kale meel bay iska taalaan maxaa ku falaysaa qof waxa uu dhimanaysaa la dhaho hedger ama speculator hedgerka iyo speculatorku maxay ku sameynayaan lacagtaada way kuugu shaqaynayaan $500,000 baa waxa uu dhimanaysaa jaamac oo forex trading 25 sano ku dhex jiray jaamac muxuu sameynayaa 5,100 buu qaadayaa suuqa maalintii $5.3 trillion laga qabto ayuu qayb ka yahay oo uu ku jiraa si uu lacagtaadan sanadku markuu dhammaado uu kala laba jibaarkeed uu kuugu soo celiyo haddaba berigii hore suuqa waxaa ka shaqaysan jiray dadyowga noocaana dowladaha bangiyada iyo dadka taajiriinta ah dad u shaqeeya oo magacyadooda la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa hedgers and speculators baa la dhahaa waxaan isku dayayaa inaan af soomaali ku hadlo inta aan ku hadli karo maadaama dadka dhegeysanaysa ay soomaali yihiin sababta kolaada af soomaali ugu hadlaya wax weeye dadka fursadan kuu soo bandhigaya waxay rabaan in ingiriis kugu baqsadaan oo ingiriis wax bala khatara kaaga dhigaan anna waxaan rabaa inaan ku soo waxaan waxba ahayn easy yahay okay 2006 wixii ka dambeeyay ayaa waxaa barnaamijka ku biiray shacabka yaa ku biiray shacabka dadka inaga yaa inoo fududeeyay marka okay goormaan ku biirnay 2006 kadib ayaan ku biirnay ka horna looma ogolan suuqaana qayb ka noqono why sababta aan ka horna loo ku ogolan waxay ahayd ka hor suuqan waxaa qayb ka ahaa waxa la yiraahdo suuqan ka hor waxaa qayb ka ahaa dadkan gruubyadan okay dadka taajiriinta bangiyada sababtuna waxay tahay 2006 wixii ka horeeyay internet suuq kuma jirin okay yaa ina caawiyay waxa ina caawiyay markii brokerku internet noqday brokerku markuu online noqday okay waxaa inoo fududeeyay brokerka oo online noqday okay ayaa inoo fududeeyay 2006 wixii ka dambeeyay haddaba sidee shirkadaan u shaqaysaa shirkadaan waxay u shaqaysaa andaan adiga waxa rabtaa inaad suuqan ka shaqaystid okay adiga ayaa diyaar inaad shaqaystid adiga iyo shirkada idin dhaxaysaa adiga iyo waxa suuqada idin dhaxaysaa iyo broker kadibna brokerka xagee buu kugu sixirayaa wuxuu kugu sixirayaa suuqii sarifka okay adigi waa kan waa soo tagtay broker baa u timid brokerku muxuu yahay marka walow aan video gaar ah ka diyaariyay brokerku waxa weeyaan waa qof ama company ama koox isku tagtay oo wadamada dunida horumaray kamida ka sharciyeysan oo adiga ka damiin ah si suuqa sarifka adduunka aad qayb uga noqotid brokerka marka aad dooranaysid waa shay ka xasaasiya ID card-kaaga laga rabaa private information-kaaga laga rabaa arrimo badan waa inaad soo martid maaha waxa ka boodi kadib brokerka marka aad timaadid oo aad ka soo gudubtid andhaxna waxa ku shubatay andhaxna lacag markii lagu xaqiijiyo brokerkaagii okay andhaxna waxa ku shubatay $100 baa ku shubatay $100 xagee baa la tagaysaa suuqii maxaa laga wadaa marka suuqu waa lacagihii lacagu maxay isku raacaan currency walba wuxuu leeyahay naynaas buu leeyahay lacagta Europe oo kale suuqa forex-ka EUR baa loo yaqaanaa ama euro sax lacagta Mareykanka kale maxaa loo yaqaanaa USD baa loo yaqaanaa tan Ingiriis oo kale maxaa loo yaqaanaa GBP baa loo yaqaanaa tan waxa la yiraahdo Canada oo kale maxaa loo yaqaanaa CAD baa loo yaqaanaa tan Australia maxaa loo yaqaanaa AUD baa loo yaqaanaa sidaa kuwa suuqii bay marka taxan lacagaha noocaana marka laba isku raacaan marka suuqa lagu jiro okay euro USD oo kale ayaa israacaysa euro USD maxay noqonaysaa euro USD waxay noqonaysaa hal trade ayay noqonaysaa hal trade ayay noqonaysaa wajada صح maxaa laga wadaa lacagta Europe qiimaha ay joogto ayaad waxaad ku sarrifaysaa lacagta USD qiimaha ay joogto lacagta Europe qiimaha ay joogto ayaad waxaad ku sarrifaysaa lacagta USD qiimaha ay joogto qofku marka uu suuqan galayo maanta oo dhan wuxuu galayaa trade kala duwan okay andana wuxuu galayaa andana GBP iyo JPY waa lacagta Ingiriiska iyo lacagta waxa la yiraahdo Japan oo kale lacagta labada lacagood marka aad galaysid laba wada midkood baa u raaci karaa ama waa maxay waa buy ama waa sell صح lacagtan ama buy baa ku galaysaa ama sell baa ku galaysaa buygaas iyo sellkaas ugu gashin marka lacagtan lacag baa ka faa'iideysaa marka buy sell ku gashin hadaa buy ku gashid kor bay aadaysaa hadaa sell ku gashidna hoos baa u raacaysaa عشان shayga marka uu qiimihiisu liito kor baa u raacnaa oo inta uu qiimihiisu ka siyaadaya la soconaa shayga aan haysano uu qiimihiisu saad yahay waa gadanaa ilaa meesha ugu liidato uu gaarayo oo hadhow dad kale ay soo gataan sax marka sida aad u ogaatid lacagtaada ma baa mise waa selba ayaad maanta oo dhan waxa qaadanaysaa go'aamadaadaas waxay ku salaysan yihiin in aad suuqi akhrin kartid okay maxaan ku yiri go'aamada aad qaadanaysid waxay ku xiran tahay maxay
waxay ku xiran tahay in aad taqaanid sida suuqa loo akhriyo sax soo maaha haddii aad rabtid marka inaad baratid suuqa loo akhriyo maxaa laga wadaa suuqa wuxuu leeyahay fundamental analysis wuxuu leeyahay technical analysis lacag walba waxaa lagaa doonayaa inaad min bilow ilaa dhammaad akhrin taqaanid haddaba si aad suuqa u akhrisid maxaa u baahan tahay si aad suuqa u akhrisid waxaad u baahan tahay wax la yidhaahdo iMarkets Live okay si aad marka suuqa u akhrisid waxaa u baahan tahay wax loo yaqaano iMarkets Live ama IML meesha marka sheekadu iska soo galayso kan weeye qofka marka IML oo qalalan barnaamijkaaga bilaabo waa qofan isaga laftirkiisu waxa uu ka shaqeeyaa aqoon maxaa laga rabaa inaad fahamtid marka hore war waa maxay waxaan walaal ka shaqeeyay waa forex trading waa sarifka lacagaha qalaad ee adduunka waa wax maalintii laga sameeyo $5 trillion waa wax 24 saac shaqeeya waa wax 5 beri usbuuca aad qayb ka noqon kartid waxaa qayb ka ah dawladaha bangiyada dadka taajiriinta ah dad u shaqeeya la dhahay hedge calculators shacabka oo 2006 kadib aan ku soo biirnay waxaana inoo fududeeyay brokerka online ka noqday suuqu u shaqeeya adiga iyo broker iyo suuqii weeye saad suuqa u gashid adiga iyo suuq waa inuu idin dhaxeeyaa dullaal lacagaha aad gadanaysid maxaa kamid ah euro USD oo kala kamid ah ayagoo badan oo saas oo kala weeye lacag walba aad galaysid waxay noqonaysaa buy ama sell buygaaga ama sellkaagu waa go'aan shakhsiyan ah oo aad adigu qaadanaysid go'aankaagaasi si uu u saxsanaado waxaa lagama maarmaan ah in aad qayb ka tahay company la yiraahdo iMarkets Live oo aniga iyo saaxiibadayba aan qayb ka nahay maybe company kale oo ka fiican inaad qayb ka tahay waa fiican laakiin maxaa la diidayaa adiga oo keligaayo oo qalalan oo aan waxba haysan oo broker kaliya haysta inaad barnaamijka ku biirtid haddaba waa maxay iMarkets Live qaybta labaad ee barnaamijkeena waxaan ku fiirin doonaa iMarkets Live kan aad sheegtay Cabdiweli muxuu yahay okay aan fiirina marka okay iMarkets Live maxaa tahay muxuu siyaa xiriir kala dhaxeeya adiga iyo forex okay okay iMarkets Live marka waa company laga leeyahay Mareykanka ama waxa loo soo gaabiyaa oo kale oo dadka badankiisa ay u yaqaanaan IML حتى iMarkets Live waxa loo soo gaabiyay International Markets Live baa loo soo gaabiyay balse iMarkets Live bay waxay ku tahay caan company-gan waxa la asaasay 2013 ayaa la asaasay ya Mareykan lagu asaasay صح waxa asaasay nin la yiraahdo Christopher Terry waa nin ka mid ah dadweynaha adduunka ugu badiya forex trading oo dhan waxa haystaa wax ka badan 25 sano oo khibrad ah ayuu haystaa 25 sano oo khibrad ayuu haystaa ninkan wuxuu ka mid yahay dadweynaha looga dambeeyo wax waliba oo forex trading ku saabsan okay Christopher Terry wuu fikray marka wuxuu yiri dadku maadaama shacabka loo ogolaaday inay suuqan qayb ka noqdaan oo ay sameyn karaan shacabku waxay u baahan doonaan garab istaag fara badan wuxuu inoo sameeyay marka system aad qayb ka noqon kartid oo ku sahlaya in aad forex-kii guul ka gaartid systemkiisa muxuu bixiyay iMarkets Live muxuu ku hayaa marka forex trading muxuu ku hayaa iMarkets Live wuxuu ku hayaa adeegyo iyo badeecooyin aad gadanaysid deetana ku sahlaya suuqii iminka aynu ka soo sheekeynay inaad guul ka gaartid okay maxaa kamid ah marka wuxuu ku hayaa adeegyo iyo badeecooyin aan dhahan waa maxay services and goods buu ku hayaa number 2 muxuu ku hayaa wuxuu ku hayaa wax la yiraahdo IML Academy waa maxay marka IML Academy waa waxbarashada ugu weyn ee online-ka ah ee maanta qof u sahli karta inuu forex trading wax ka fahmo waa wax ka badan 100 videos waa wax ka badan 100 videos wax ka badan oo step by step adiga ku fahamsiinaya wax waliba oo forex trading ku saabsan okay sababtoo ah suuqan waa suuq weligii soo jiray waa suuq madaxweynta iyo dawladda bangiyada ku jiraan haddii aadan aqoon ahaan diyaarsaneyn qayb kama noqon kartid okay number 2 waxay ku haysaa IML wax la yiraahdo IML TV oo ah TV live ah okay TV live ah oo bil kasta wax ka badan 1000 saacadood oo live ah u jiro waxaana ku fadhiya wax ka badan 60 macallin okay 60 macallin wax ka badan ayaa ku fadhiya oo dhammaantood ah lacag badan dad ka sameeya suuqan dad dhammaantood kaaga soo horreeyay adiga suuqan forex trading doonayeen in adiga jid ku tusaan marka boqolkan video aad soo daawatid ee aad soo fahamtid waxa u baahan tahay qof ku fahamsiiya macluumaadkii
qof si toos ah wixii u sameeya dadkaana kuu diyaara labadan markaa fahamto waxaa u baahan tahay meel aad practical ku samaysid meelaha aad practical ku samaynaysid waxaa ka mid ah adeega saddexaad oo haystida magaciisa la yidhaahdo IML harmonic scanner okay IML harmonic scanner waa maxay marka waa adeeg kale oo kuu sahlaya in adiga markaad cilmigii baratid farsamadii aad baratid inaad isticmaashid si aad suuqii aan kasoo sheekeynay aad lacag uga samaysid okay waa garanay okay okay waan garanay IML harmonic scanner marka laga tago maxay kala shirkadu ku haysaa waxay ku haysaa wax la yidhaahdo IML web analyzer okay oo ah mid ka mid ah website-yada ugu cajiibsan guud ahaan dunida forex-ka oo dhan website-kan kaliya inaad haysatid ayaa istaahila lacagta IML ay kaa qaadayso oo dhan web analyzer kaliya ayaa u qalma runta markaan kuu sheego lacagta kaa qaadayso oo dhan marka la yimaado kaas waxay kaloo shirkadu ku haysaa wax la yidhaahdo adeeg kaloo magaciisa la yidhaahdo IML swipe trader oo ah waa app hadda asagoo lasoo cusboonaysiiyey baa lasoo wadaa appkani waa app loogu talagalay in qofku uu isagoo gurigiisa joogo telefoonkiisa ugu soo dhacaan adeegyadii uu qofku gadan lahaa okay swipe trader marka laga reebo sidoo kale shirkadu waxay ku haysaa adeeg kale oo la yidhaahdo IML Pipto oo ah mid cusub oo hadda farta laga jaray oo loogu talagalay macallimiinta iyo ardaydu inay ku wada xiriiraan markuu TV-gu ku dhaafo oo macallin uu TV-ga live ka ahaa deetana TV-ga aad waxa la yidhaahdo ilowdid Pipto-ga imaanaysaa deetana si toos ah waxa la soconaysaa casharkii meesha ku dhaafay intaa waxaa dheer oo kale oo adeegyada guud ee commonka ka mid ah adeeg kale oo la yidhaahdo night owl ama madaxweynaha shirkadu in habeen kasta oo axad ah uu 2 saac iyo bar waqtigiisa ka mid ah maanta markii axadeed caawa isniin soo galayso 2 saac iyo bar waqtigiisa ka mid ah TV ku soo fariisto ninkan in chance lagu helo Christopher Terry kaliya in chance lagu helo ayaa waxay qaadan jirtay sanado okay Christopher Terry kaliya inaad chance ku heshid ayaa waxay kugu qaadan jirtay sanado haddii aad heshid chance kaas ugu yaraan $1,000 baa kaa bixi jirtay ka waran every single Sunday night haddii uu live ku yahay haddaba adeegyada common ka marka waa intaan waxaase jira adeegyo aan kuwan ka mid ahayn oo aan si gaara lacag ula baxaysid waxaa ka mid ah bonus bag mid la dhaho waxaa ka mid ah gold cup ka mid ah waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo swipe coin baa ka mid ah waxaa ka mid ah adeegyada bitcoin-ka u kaakayo dhan balse adeegyada dadka laga iibiyo waa intaan toddobadan adeeg waa common dadkoo dhan baa laga iibiya haddaba laba option buu qofku haystaa si ugu biiro okay maxaa haystaa laba wado midkood ayaa qofku haystaa si ugu biiro sheekadan labada wado maxay tahay wadada koowaad waa mid aad bixinaysid waxa la yiraahdo wadada koowaad waxaad bixinaysaa $200 waxaad bixinaysaa $50 $250 marka aad bixisid waxaad haysataa adeegyadan oo dhan toddobada adeeg buu haysataa okay toddobada adeeg buu ku furmayaan hadii $250 aad bixisid okay wadada labaadna maxay tahay wadada labaadna waxaad bixinaysaa $217 hadda ka hor presentation aan sameeyna waa kaga hadlay barnaamijkan qofka labada option waa loo sheegaa bas annaga oo dhan optionka hore ayaan qaadanaa sababtoo ah web analyzer-ka dartiis because web analyzer-ka kaliya ayaa ka qiimo badan 6 kale oo la isku daray ma fahamtay hase aatee haddii aad $217 bixisidna web analyzer-ka waxa ka maqan iyo swipe trades okay swipe trade waa ka maaran karaa daartid balse web analyzer-na gaar ugu yeetid bay noqonaysaa $16 iyo dhowr senti baa la siiyay okay marka IML marka ku dirtid ee aad $250 ama $217 bixisid waxa jirta lacag bilaa oo gadaal laga bixinayo lacagta bilaha awal waxay ahayd $145 hadda si waa la bedelay maadaama barnaamijyo badan ay soo kordhiyeen Pipto-gaasi soo kordhiyeen waxay soo kordhiyeen adeegyo kale oo ay ka mid tahay free laga dhigay academy-gi waxa lagu daray crypto academy baa lagu daray maadaama adeegyadaas la badiyay lacagtii waa la siiyay waana sababta keentay inaan barnaamijkan aan dib u cusboonaysiino haddii aad $250 bixisay laba option baa haysata labada option haysta waa maxay ama inaad lacag bilaa bixisid ama inaad laba qof keentid okay lacagta bilaha marka haddii aad $250 bixisay bil kasta oo intaa ka dambaysa waxaad bixin doontaa wax la yiraahdo $194 okay haddii aad laakiin bixisay waxa la yiraahdo $217 bil kasta waxaad bixin doontaa lacag dhan waxaan ka wadaa $161 okay haddii ay kugu adag tahay marka $194 na bixisay bil kasta ama $161 na bil kasta bixisid muxuu yahay optionka labaad ku banaan laba qof shirkad qor haddii aad aqoon laba qof shirkad si loo qoro
daawo video aan ka diyaariyay sida saxda ah ee dadka loo qoro ama dadka aad fursaddan kusoo diri karid barnaamijkan in runta laga sheego wuxuu ku qurux badan yahay male dadka qayb baan loo sheegin waxaan hadda ku sheegayo hadhowna waxay keentaa jahawareer fara badan okay videoga waxaan duubayaa inaad xaqiiqada ogaatid 2019 la marayaa ayna hadii $250 ku gashay bishu markay dhamaato laba qofna aadan qorin maxaa laga rabaa waxa laga rabaa $294 bixisi hadii $210 ku soo gashid bishu ay ka dhamaato laba qofna aadan qorin maxaa laga rabaa $160 la timaadid haddaba barnaamijka iMark Slave markuu wuxuu leeyahay qayb kale oo dheeriya oo ah network marketing video gaar ah baan ka diyaariyay network marketing iyo macluumaadkiisa maadaama dad badan oo Soomaaliya jooga maadaama dad badan oo Ingiriiska jooga iyo wadamo kale xataa qaybta Sweden ila joogaan oo IML kamid ah tiimam kale ah oo aan tiimkeena ahayn maadaama ay network kaliya ku shaqaysanayaan oo aysan trading ka focusin waxaan rabaa sida saxda ah ee network loo sameeyo idin sheego waxaan diyaariyay video dhan oo u gaar ah sida saxda ah ee team loo dhisto videoga daawo hase ahaatee maxay tahay fursadda meesha ku jirta fursad labaad oo dheeriyaba meesha ku jirta ma jecel inaan ka hadlo balse maadaama dad kale ay ka hadlayaan lagana yaabo in si khaldan wax lagu sheego ayaa waxaan go'aansaday inaan isagana soo fiiriyo okay markaad IML ku biirtid waxaad noqonaysaa wax la yiraahdo independent business owner okay independent business ama waxa la yiraahdo IPO ayaa noqonaysa maxaa noqonaysa IPO why IPO marka noqoto waxa lagu furayaa waxa la yiraahdo IPO back office baa lagu furayaa dadna waxaad fursad u haysataa inaad lacag ka dhex samaysid IML qaybta network ku carabaa sida saxda ah ay u shaqeeyeen inaan ku sheego okay marka barnaamijka ku biirtid waxa jira bonusyo kala duwan oo la qaato salaano kale markasta oo qof qortid $35 baa ku leedahay markasta qofka qortay qof qoro $10 baa ku leedahay waxas muhiim ah waxa kala hadlaya qaybta ugu muhiimsan ee lacagta laga sameeyo sababta kala hadlaya maxay tahay sababtoo ah dad baa suuqa ku jira focuskooda uu qaybtan kaliya yahay ku caraba inaan ku soo diyaariyo maskaxda lacala hadii wax khaldan lagu sheego inaan xaqiiqada ogtahay baan rabaa okay qofku waa inuu IPO noqdo horta si uu lacagta u qaato hadaa marka hore customer ahayd tani waa customer nimadii qof customer ka noqonayo tanina waa maxay waa IPO waxa jirta marka qayb la yiraahdo bonus waxa jira la yiraahdo bonuska waxa la yiraahdo rank achievement bonus mid la jira okay rank achievement bonus mid la jira waa maxay waa khidmad lagu bixiyo darajooyinka la gaargaaro darajooyinkaas way badan yihiin waxay ka bilowdaan platinum waxa la yiraahdo 150 ilaa waxay gaaraan German Infinity wax la dhaho okay midda koowaad marka waa maxay darajada koowaad waxa la yiraahdaa platinum 150 okay platinum 150 saa u noqotid maxaa ka xiga platinum 150 saa u noqotid waxa ka xiga inaad 3 qof aad qortid okay 3 qof ayaad keentid 3 qof markaa keentid maxaa bil kasta qaadanaysaa bil kasta waxa qaadanaysaa wax la yiraahdo $150 $150 bil lagu sugumeeyaa jimca kasta waxa ku soo dhacay 4 meelood oo meel oo noqonaysa intee $37 iyo bar 3 qof ayaad qortay markaad platinum markaad IPO noqotay 3 qof magacaaga ku qortay iyo linkigaaga isticmaashay kadib waxaad noqonaysaa platinum 150 network marketing waa fursad jirta waxba yaan laga bajino waro network marketing waa qiyaali ma raba inaad dad la hadlo why aad la hadlan dad hadii uu yiri fursad dheer ah meesha ku jira aad ka faa'iideysan kartid why not okay darajada mid ku xigto waxa la yiraahdaa platinum 600 baa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa platinum 600 ayaa la okay platinum 600 saa u noqotid maxaa laga baahanaa qortid waxa laga baahanaa qortid 12 qof okay 12 qof hadii aad qortid bil kasta waxaad qaadanaysaa lacag joogto ah oo residual income ah oo noqonaysa $600 $600 miyaa lagu soo yahay 30 si lagu soo diro maya bil kasta maxaa ku soo dhacaysa waxa ka wada jimca kasta maxaa ku soo dhacaysa $150 hadda aniga la hadlayo video aan duubayo maalin jimca bay ahayd hadda residual income-kayga ay soo dhacaya saacad kadib okay sidoo kale trading lacag baan kala sameeyaa so if you want inaad labadaba ka shaqaystid there is a chance aad labadaba guul ka gaari kartid haddii ay niyadaadu saafi tahay sida saxdaana aad business u dhisid aysan ka ahayn tuuganimo iyo dadka soo ururso iyo habar iyo oday iyo maskiin iyo ka aragtidba waxa weeye madax soo geli haddii aysan ka ahayn oo qofka isleedahay waxaan ka bixi karaa qofka isleedahay waa arday shaqo la'aan baa haysa qofka isleedahay waa walaal waxaan anfacayaan haddii aad u bandhigtid marka taa laga yimaado darajada saddexaad ku xigta waxa la yiraahdaa platinum waxa la yiraahdaa 1000 maxaa ka xiga platinum 1000 saa u noqotid platinum 1000 saa u noqotid waxa ka xiga inaad qortid maxay 30
soddon qof okay maxaa laga rabaa inaad qortid soddon qof maxaa weeye maqsadka meesha ku jira waxaa laga rabaa inay lugahaagu isku dheelitiran yihiin saddex qof markaa qoraysid waa lug walba qof inuu ku jiro qof iyo qof iyo qof 12 qof markaa qoraysid hal lug haday ku wada jiraan lacag ma qaadanaysid maxaa laga rabaa inay isku dheelitiran yihiin afar qof oo hal gees ku qoran afar qof oo hal gees ku qoran afar qof oo hal gees ku qoran soddon qof markaa qoraysid maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa 12 dhinac ku qoran 12 dhinac ku qoran iyo 6 dhinac ku qoran sida iyagu kuugu nidaamiyeen waa inaad raac kelid marka aad soddon qof qortid bishii maxaa qaadanaysaa bishii waxaa qaadanaysaa $1000 intaa markaa maqlay aniga waxaa yidhi soddon qof sheegay maxtina $1000 qoro 15 days ii qabta 12 days wax ka yar baan ku noqday platinum 1000 aniga because I was hungry lacag baa u baahnaa I needed inaan lacag helo fahamsa $1,000 maxaa lagu siinayaa $1,000 bil jimco kasta waxaa kusoo dhacaysa $250 very simple darajada midda ka xigta waxaa midda ka sareysa waxaa la yiraahdaa platinum 2000 ayagoo dhan ma qori karno inta ugu muhiimsan baa soo koobinaa platinum 1000 markaad noqotid maxaa lagaga baahan yahay 75 qof 75taada qof waa in ay isku dheelitiran yihiin say iskugu dheelitiran yihiin lug waxaa laga rabaa inay ku jirto 30 qof lugna waxaa laga rabaa inay ku jirto 30 qof lugna waxaa laga rabaa inay ku jirto waxa la yiraahdo 15 qof haddii aysan sidaas ahayn lacag ma helaysa hadaa lugna konta kugu jiro lugna 5 kugu jiro lugna 10 kugu jiro xoog ma ku helaysa markaad email aada IBO tahay email meel waxa jirta la yiraahdo rank report ka fiiri meeshaas ku qoran yihiin inta bil kasta qaadanaysaa bil kasta waxaad qaadanaysaa $2,000 okay wax ka yar 3 bilood ayaan ku gaaranay darajadan okay kadib maxaa bil kasta kusoo jimcaha maxaa kusoo dhacaya $500 oo dheeriya every single friday kusoo dhacaysa ma u baahan tahay $500 dheeriya bil kasta ma u baahan tahay 500 oo ka gaara shaqada hadda ka shaqaysid jimca kasta afartii jimcaba inaad $2,000 oo dheeriya oo joogta oo weligeed soconaysa inaad heshid ma u baahan tahay of course waa u baahan tahay maxaa kaa xiga waxaa kaa xiga 75 qof oo walaalahaya inaad noloshooda wax ka badashid inaad bartid fursad ganacsi oo xor ah oo dunida daafaheeda dadka jooga oo dhan ay ka shaqaysanayaan ayma lacagta asaxan ku siin mayso sababtoo ah dad baad u keentay dadkan aad keentay sababta u keentay maxay ahayd yeesan meesha ka bixin qad dadka keen lagama wado waa inaad dadkan trading ka tusi kartid that's why aan maalintii 3 jeer zoomka u soo galo that's why aan 5 jeer asbuucii aan zoom 5 maalmood asbuucii aan zoomka u soo galo sababtoo ah hadii kale lugooyay noqonaysaa qof intaa qortid haddaad tiraahdo hayo kaas laamiga iska celi it doesn't make sense it's bullshit hadda qofkan qoraysid waa inaad system ku xiri kartid haddii aad system haysan waa inaad abuuri kartid teamka maanta noo dhisan anaga abuurnay anaga dhisanay okay midaasan ku darayaa platinum waxa la yiraahdo 2000 waxa ku xiga darajada shanaad waxa la yiraahdaa platinum 5000 you get the idea صح saas ku soconaysaa platinum 5000 saa noqotay maxaa laga rabaa 225 qof baa laga rabaa 225 qof ayaa laga rabaa okay kadibna maxaa qaadanaysaa bil kasta waxaad qaadanaysaa $5000 okay okay maxaad qaadanaysaa $5000 ayaa qaadanaysaa halka aad qaadanaysid jimco kasta maxaa qaadanaysaa 5000 fariigu qaybi intahay ma nimanka xisaabta ku fiicnaan okay okay $1250 صح $1250 ayaa jimco kasta qaadanaysaa saas ku soconaysaa barnaamijka $150 ka soo bilowday wuxuu soconayaa ilaa iyo $500,000 ayuu soconayaa meeshaas wixii ka dambeeyay horta waxa bilaabanaya waxa la yiraahdo German tan saa u noqotay maxaa u baahan tahay German tan saa u noqotay waxa u baahan tahay 500 qof 500 qof I bet in magaalada aad joogtid ay ka badan 500 qof ka badan ku noosha 500 qof kaliya dad noloshooda ka bedeshid maxaa bil kasta ku soo dhacaya bil kasta waxa ku soo dhacaya $10,000 okay maxaa bil kasta ku soo dhacaya $10,000 baa ku soo dhacaya I don't know $10,000 in noloshooda wax ka bedesho balse aniga noloshooda wax ka bedesho saas ku soconaysa $10,000 maxaa ku xigi doona waxa ku xigi doona wax la yiraahdo $25,000 baa ku xigi doona okay $25,000 maxaa ku xigi doona waa German 25 maxaa ku xiga waxa ku xigi doona wax la yiraahdo German 50 okay maxaa qaadanaysaa $50,000 baa ku xiga maxaa ku xigi doona waxa ku xigi doona waxa la yiraahdo German 100
maxay ka dhigan tahay inaa 100,000 aad qaadanaysid bil kasta maxaa kusoo xigi doona waxaa kusoo xigi doona German 250 maxay ka dhigan tahay inaad $250,000 aad bil kasta qaadanaysid maxaa kusoo xiga waxaa kusoo xigi doona waxa yidhahda German 500 okay German 500 waxaas oo dhan waxay kasoo bilaabatay inaad 3 qof qortid German $500,000 marka aad joogto ama German 500 marka aad joogtid intee qof baa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa 30,000 qof kaliya 30,000 qof waxaan ogahay magaalada aad hadda joogtid inay ku nooshahay oo dhalinyaraha oo dhammaantood shaqo la'aana 30,000 qof nolosha daxkudasha lacagtan waa helaysaa haddaba barnaamijkan waxaan kuugu sheegayaa sababtoo ah dad waxaa jira kaa habaabinaya forexiskii oo maanta dhan kan ku mashquulsan iska ilaali dadkaas marka haddaba nuxurka sheekadu wuxuu yahay haddii aad doonaysid inaad forex trading ka shaqaystid waxaad u baahan tahay barnaamij sida kan IML oo kale ah okay maxaad u baahan tahay barnaamij sida kan IML oo kale ah maaha inaan ku leeyahay IML baa ku khasban tahay laakiin wax IML oo kale ah waa lagama maarmaan adeegyadan oo kale inaad haysatid waa lagama maarmaan haddii aan runta kuu sheego haddii aad wareysatid dadka hore IML ka hor barnaamijkan ku jiray in hal buug la garto keliya ayaa waxay ahayd $250 in hal mentor la helo keliya ayaa waxay ahayd wax ka badan waxa la yiraahdo $200 maanta wax walba waa loo soo fududeeyay lacagtan haddii ay kula badan tahay annaga tiimkayga ahaan waxaan ku dadaalnaa qof kasta inta aysan 30 casho ka dhammaan in aan barno sida forex trading lacag looga soo saari karo haddaba nuxurku muxuu yahay nuxurku waa barnaamijka la yiraahdo forex trading haddii aan forex trading sheekada lagaaga bilaabin oo IML lagaaga bilaabo qofkaas ka fogow ka carar waxba kama yaqaano wuxuu kugu yeeraya balse hadduu qofka forex trading kuu sharaxo inta lacag laga qabto kuu sharaxo dadka ku jira hadduu kuu sharaxo sida u shaqayso hadduu kuu sharaxo tiim inuu leeyahay nidaamsan oo ku caawin doona hadduu kuu sharaxo annagu waxaan leenahay wax ka badan 5 jeer ayaan suunka soo galnaa 3 jeer wax ka badan ayaan suunka soo galnaa subaxdii waxaan qabanaa subaxdii zoom baan soo galnaa waxaan qabanaa live session okay duhurkii waa soo galnaa dadka cusub baan caawinaa qof kasta cusub oo la qoro duhurkii 10 buu leeyahay jadwala sax maxaan soo galnaa habeenkii waa soo galnaa 10 advanced ah baa noo socdo oo dadka tiimkayga ka mid ah tiimkayga ma dhahayo because anigu tiimka ma leeyahay anagoo dhan baa leh dadka tiimkayga ka mid ah oo anigu dadkii aan ka bilaabay fursadda aniga iyo intii qof oo aniga gadaashayda soo gashay fursadda ka mid ah qof walba oo maanta ka mid signal ma sugo qof walba oo maanta ka mid ah isagaa shaqaysta haddii marka lagugu soo dhiirigeliyey signalaan ku siinaynaa iska ilaali because qof baa wuxuu doonayaa inuu asagu adiga darajada tan kugu gaaro maxaan ku yidhi qof ayaa hadafkiisa oo dhan wuxuu yahay inuu adiga darajadan kugu gaaro haddii laakiin aad daacad tahay haddii ay niyad kaa tahay oo aad dadka forexiska bartida loo isticmaalo tan iyadaa iska imaanaysa automatically iyadaa tan iska imaanaysa laakiin haddaad tan ku mashquulshid qof kastoo aa qortid uu baxayaa sababta forex qofkii maadan barin soo maa haddaba nuxurka warku wuxuu yahay haddii aad doonaysid inaad forex trading ka shaqaystid maaha inaan ku leeyahay IML la'aanteed forex kama shaqaysan karid because IML way cusubtaa IML ka hor forex way jiri jirta weligeedna way jirta okay haddii aad doonaysid marka inaad businesskan ka shaqaystid haddii aad doonaysid inaad businesskan guul ka gaartid u mar jidka saxda u mar qof fursaddan wax ka yaqaana okay adiga ugu yaraan qof ku dhaama itusda iyo xaqiijida inaad leedahay nidaam inaad leedahay barnaamij guulaystay oo dad badan oo guulaystayaal ah ay ku jiraan okay haddii uusan ku xaqiijin karin ka fogow ka car okay haddii aad videogan daawatay fahamtay waxaan ka sheekeynayo ku noqo qofkii barnaamijkan kugu soo casuumay ka hubi 3 shay ka hubi in qofkaasi uu nidaam leeyahay iyo barnaamij iyo casharo joogtaa iyo cid mentors uu ku xiran yahay ka hubi qofkaasi inuu ku garab geli doono intaa cusub tahay okay ugu dambeynna ka hubi qofkaasi inuu adiga wax ku bari doono haddii uusan intaa awoodin adigu ma waalid okay daarad maanta inaad gym ka gashid saaxiibkaaga buuran u tagi maysid daarad maanta inaad aroosatid saaxiibkaaga single-ka u tagi maysid waxa aad u socotid qofku u dhaamaa loo tagaa okay salaam ya dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka ka faa'iidaysteen salaamu alaykum